Tan iyo sanadkii 2010 kooxda Liverpool ayaa guuldaro kala kulantay kooxda Everton kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska kadib markii guuldaro 2-0 ay xalay kala soo laabatay garoonka Goodison Park ee kooxda Everton. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay taageerayaal aad u badan kuwaasi oo kala taageeraya kooxaha Liverpool iyo Everton. Waxa uu ku bilowday hab ciyaareed aad u sareeyo iyadoo waliba ay doonayeen in hoggaanka ay qabato koox waliba. Inkastoo kooxda Everton ay ciyaareysay kubadaha hawada taasi oo dhibaatooyin badan ku abuureysay ciyaartoyda kooxda Liverpool ilaa ugu dambeyn kubadahaasi loogu dhaliyay markii uu shabaqa u tagay difaaca kooxda Everton ee Braithwaite. Kooxda Liverpool ayaa bilowday inay sare u qaaddo hab ciyaareedkeeda si ay usoo guddo goolka lagala hormaray balse taasi waxba kama soo naasacdaanin waxaana yimid goolkii labaad ee kooxda Everton daqiiqadii 58 kadib markii uu shabaqa tagay weeraryahanka kooxda Everton Dominic Calvert-Lewin kaasi oo quus gooyay kooxda Liverpool iyo macalinka reer Jarmal ee Jurgen Klopp. Wiilasha Jurgen Klopp ayaa niyad-jab kala soo laabtay garoonka Goodison Park maadaama xil ciyaareedkan ay aad u doonayeen inay ku guuleystaan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska inkastoo oo tartankani xiisaha badan ay tartan kula jiraan kooxaha Manchester City iyo Arsenal. Si kastaba ha ahaatee haddii kooxda Manchester City ay badiso labada kulan oo ay gacanta ku haysato wax ay 5 dhibcood oo nadiif ah ka sarmari doontaa kooxda uu hogaamiyo Jurgen Klopp ee Liverpool. Daawade aragtidaada hoos inoogu reeb sanadkan kooxdeeba fursad wanaagsan u haysata guuleysiga horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska.